hay-adda xakamaynta HIV/AIDSka ee Somaliland ayaa ka socda hoteelka Haldoor ee magaalada Boorama. Kulamadaasi oo shalay ilaa maanta ka socday ayaa waxaa lagaga hadlayaa sidii guddiyada xaafadaha kala duwan ee magaalada Boorama loogu samayn lahaa guddi haga wacyigelinta iyo ka hortagga xanuunka HIV/AIDSka iyo sidii bulshada loogu sheegi lahaa inaan la tukorin qofka qaba xanuunka HIV/AIDSka. waxaana halkaasi hadallo ka jeediyey agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo tababarada ee hay-adda xakamaynta HIV/AIDSka Somaliland Dr. Maxamed Jaamac Saciid. waxaana uu sheegay maanta waxaynu halkan u fadhinaa inaynu aasaasno amba aynu samayno tababar ku saabsan in bulshadu ka qayb qaadato wacyigelinta HIV-ga, taasoo ah xafiiskan waa xafiis dawladeed uu qaranku leeyahay, qarankuna u qaabilsan HIV-ga, iskuna xidhiidh iskuna dubarida hawlaha khuseeya. marka bulshadu qayb bay ka tahay wacyigelintiisa oo in laga soo bilaabo hoosoo bulshadu qayb ka qaadato gobol, degmo ilaa heer tuulo. saasaa markaaynu qodi doonaa inaynu guddiyo u samayno, guddiyadaasoo ka imanaya bulshada oo markii horena horoday u qaban jiray arrimaha bulshada khuseeya wacyigelinta, kana inuu qayb ka yahay shaqadii hore aad sii haysay mutadawacnimada ahayd ayuu kana qayb ka noqonaya. sidoo kale agaasimaha guud ee hay-adda xakamaynta HIV/AIDSka ee Somaliland Dr. Ismaaciil Maxamed ayaa bulshada ku baraarujiyey inay ka shaqeeyaan wacyigelinta ka hortagga xanuunka HIV/AIDSka ee gobolkan Awdal. xanuunkaas wacyigelintiisa iyo la dagaalankiisa ayaanu u xil saaranahay. waa xanuun bulsho oo aan ahayn xanuun cid gaari khuseeyo aan ahayn. hadduu xanuun cid gaara khuseeyo xanuun caafimaad yahay, wax gaar oo wasaaradda caafimaadka baa laga dhigay department ka tirsan wasaaradda caafimaadka. commission madax bannaan waxa loo sameeyay ahmiyadda uu leeyahay oo waliba guddoomiyenimadiisana madaxweynuhu qaatay. u baahanahay markaa in aynu ogaano inaanu xanuunkii taginay, laakiin dadku caafimaad qabaan oo la daweeyey soo maad garan, laakiin wixii uu jiro waxaynu u baahanahay markaa inaynu dagaal badan iyo dadaal badan ka galno dadka ay khuseeyaan oo dhan. marka xanuunku saas wuxuu waa xanuun bulsho aan xanuun caafimaad oo dhaqaatiir khuseeyaan u hayn, xanuun wax kala qabo waa xanuun bulsho arrimaha bulshada oo dhan ku dhex jira dhammaan. waxaynu u baahanahay markaa yar ilaa weyn dee nafteena iyo dadkeena inaan badbaadsano. commissionku uu soo qoystay haddii inta muddo badan meydaan maqlin baan u malaynayaa isagoo meelaha soo socda. innagu waxaan u baahan dadkeena ka qaba laftarkiisa inaan soo saaraan u baahannahay. laba arrimood wax inoogu daran waxa weeyaan dadkii oo bulshada ka faquuqan oo inaga laftarkooda markaan yaraagna si wuxuu wax inagu soo boodaayo aan ka yar durkayno, iyagina cuqad qaaday oo markay xanuun ku dhacdo odhanaya waa lagu takoorayaa oo qofkii xanuun cadhayska qayba lagu odhanayaa, iyaguna way sii qarinayaan. qarintaasina mushkiladeeda leedahay. hadee meel kastoo la joogo waa in aan siiro garayno. haddaan qaadano dhowr sano, 2 sano, 3 sano oo dadaala oo si fiican bulshada loo gaarsiiyo, dadka aqoontiisa la gaarsiiyo, lagu wacigeliyo, waxaan hubaa inay cid dambe oo qaadaa yaraan doonto. dhanka kale waxaa kulankaasi la mid ah ay ku qabteen hotel Haldoor ee magaalada Boorama oo loo qabtay dhalinyarada kala duwan ee magaalada Boorama oo iyagana lagaga hadlayay wacyigelinta xanuunkaasi. waxaana kulankaasi ka hadlay agaasimaha guud ee hay-adda xakamaynta HIV/AIDSka Dr. Ismaaciil Maxamed xanaanshada ama santarada aad joogtaan waxaad kula kulmaysaan dad badan oo caynkaas in badan ogtiina way jiraan oo dadku ogeyn. waxa la rabaa mataqaanaa wacyigelinta inaan la iloobin oo mar walba lagu daro, mar walba dadka in wax loo sheego, dadka idii imaanaydo waxyaabaha taasiinaysaan inuu HIV controlkiisna ku jiro oo kelmadana ku darsataan. waxa muhiim ah dadkeena xanuunsan laftooda in la soo dhaweeyo oo bulshada la soo dhexgeliyo. waxaan kaliya ka guuleysanaynaa waxa weeye dadka xanuunsan markay bulshada soo galaan ee fuquuqa laga daayo, iyaguna ay iska saaraan isfuquuqayaan oo bulsho inaga midad qof sida caadiga dadka xanuunada diabetic iyo amartashka qabo kale u dhaqmayaan ee bulshada ugu dhex jiraan. sidaas oo kale waa xanuun la kamid ah dhibo ku jira ma jireen. libaax inagu soo boodayna maaha, waxaan mataqaanaa cidada laga qaadayna maaha, ninkii doontayo nin accident ku dhaca unba qaadaya. marka muhiimaddu waxa weeyaan
in iyagana la soo dhaweeyo bulshada la soo dhexgeliyo inta taqaanada iyo inta cidda taqaana intay si taqaana iyo haduu adeegsata qof kastoo dad arag taqaana oo HIV qaba aad soo dhaweysaan si uu idigu soo dhaweeyo isaguna inta iyaga taqaana dadka kale igu soo dhaweeyo waa in bulshada ku soo darnaa iyaga sida kaliya ka goysana waa sida xilka bulshada ka saaran ku ka weyn oo ka balaaran baa inaga saaran wariyeen caafimaadka ka hadlaya marka aad baan idin soo dhaweynayaa wax badan ay idin sheegi maayo waxaan ku dhiirigelinaa in hawsha qabataan وعافي تيفي قرنك سومالان بورما